بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. walaalaha Soomaaliyeed meel walba ay joogtaan Allah idin dhowro. dhulkeeni hooyo bersamaadka Allah ku soo celiyo. amnigiisa iyo amaankiisana Allah sugo. caawa waxa inoo bilaabanayaa barnaamij taxane ah oo aan ugu magac daray dhaxalkii rasuulkeena suuban sallallahu alayhi wasallam. walaalayaal runtii waxaynu inteena badan ilownay dhaxalka qiimiga badan, quruxda badan, qaaliga ah ee aynu ka dhaxalay xabiibkeena suuban ku salli xabiibkaaga sallallahu alayhi wasallam. dhaxalka uu ina leeyahay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam waqtiga fitanta, waqtiga balaayada, waqtiga ay idinkugu daran tahay ee ay adduunyadu idinku habsato, ku qabsada goos dambeedka waa badbaadaysaane. caawana xalaqadeena koowaad waa mid ka mid a dhaxalka ah, waana alwafaau bilcahd, ballanta oo la oofiyo. ballanta oo la oofiyo, ilaahay ballamaha laga qaadayo, ummadiisa ballamaha laga qaadayo in la oofiyo. aad iyo aad buu ilaahay noogu tirtirsiinaya. caawa waxa ay doonayso madrasadu inay ku qayliso waa dhaxal ina dhowraya adduun iyo aakhiro. waa mustaqbalkeennii dhammaa, waa nolosheenii adduunyo, waa nolosheenii aakhiro. dhayal ma aha, ha fududaysanina, arrinkuu adag yahay. dhalinyaroy dhigaha ii fura. ballanta oo la qaado oo aanan la fulinin caaday noo noqotay walaalayaal. ma kula tahay addoonkii allow ballanta aad ka qaadid addoommada ilaahay ama alleba aad ka qaadid ee aad oofinaysid in aad ku helaysid shahaadada ugu qiimiga badan caalamkan uunkan dushiisa, oo weliba insaan aanu bixinaynin, oo uu bixinayo Allah subxaanah. xaggee buu ka soo bixinayaa? waa min fawqi 7 samaawaat, 7 sama ka kore ayaa shahaado lagaa siinayaa. allahu akbar. shahaadadaasaa wax loo tartamo ah, shahaadadaasaa wax laysu dhabarjabiye ah, oo weliba cidiyaha iyo faraha in lagu dagaalamo ah sidii loo heli lahaa. walaalayaal, alle subxaanah waa ka uu dhahayo wa awfuu bicahdi illaahi idaa caahadtum. oofiya ballamaha alle, oofiya marka aad gashaan ballamaha si toosa ilaahay oga qaad oo wax isku waajib yeel, ama insaanka ka qaad. oofiya ballamaha aad qaadaan. insaanku labuu ileen u kala baxayaa, kuwa oofiya iyo kuwa aanan oofinin, kuwa baasa oo guulaysta iyo kuwa ku dhaca imtixaankee. ilaahay wuxuu doonayaa in uu bixiyo shahaado magaceeda la yiraahdo shahaadatu taqdiir, oo lagu magacaabo alwafaau bilcahd. waa shahaado wallahi shahaadooyinka o dhan ugu sareysa. shahaadooyinkan waraaqadahan aanu maaragtay ku daalay, waqti badan ku bixinay, xoolaheeni iyo xoogeeni oo dhan inaga dhameeyey si aanu ugu goosano, ugu raadsano, ugu urursano xaaba adduunyo. laakiin caawa ilaahay wuxuu rabaa in uu idin siiyo shahaado la yiraahdo alwafaau bilcahd, shahaadatu taqdiir, shahaado runtii ay qaateen ambiyadii ilaahay, bal rusushii ilaahay, bal kuwii khaaska ahaa ee ululcasmiga ahaa ay qaateen. shahaadada aan doonaya maanta inaad qaadatid waa shahaado ay rusushii ululcasmiga ahaa ay qaateen oo uu guddoonsiiyey alle subxaanahu wa tacaala. soo walaale, addoonkii allow, addoontii allay ma doonaysid ilaahay inuu ku guddoonsiiyo shahaado taqdiir alwafaau bilcahd. shahaadada waxaa qaata un mu'minka dhabta ah. allah, maxaa yeelay
waaba sifo laazimo ah oo laazimaysa ku dhegan aanan ka faaruqaynin qofka mu'minka ah. mu'minna laguma noqdo garabeeshin, laguma noqdo qabiil, laguma noqdo lacag, laguma noqdo in adeersi, laguma noqdo laguma noqdo intaasoo dhan. mu'minka dhabta ah dadaal baa lagu noqdaa, camal saalix ah, hoggaanka inaad dhiibatid, niyadaada hagaajisid, adiga oo dhan ilaahay inaad isu dhiibtid, awaamirtiisii qaadatid, nawaahidiisiina aad ka hadhid. ya tawfiiq ilaahay baa lagu noqdaa. marka eeg, ilaahay isagoo ammaanaya mu'miniinta oo sheegaya in ay mudan yihiin shahaadada in la siiyo, waa ka uu dhahayo waalmuufuuna bicahdihim idaa caahaduu. mu'miniinta dhabta ah ee guulaystay, imtixaankan adduunye ku baasay, waa kuwa oofiya ballamahooda, kuwa ay alla ka qaadayaan iyo kuwa dhexdooda ay iska qaadayaan, waa kuwa oofiya. waalmuufuuna waa kuwa oofiya oo ka soo baxa bicahdihim ballamahooda idaa caahaduu, marka ay qaadaan. qofka insaanka markuu ballanta qaado maxaa loo baahan yahay? waa inuu ka soo baxaa, waa inuu gudaa. maxaa yeelay imtixaan waa lagu eegayaa, ilaahay baa ku eegaya, imtixaan baad ku jirtaa. waad aragtay marka imtixaanka inaadan qishi karin, inaad meelaha eega. ha qishin. qishku waa inaad kasoo bixi weydid oo aad burisid, aad guub yeeshid ballanta. waalmuufuuna bicahdihim idaa caahadu. ugu dambayntii sifooyin badan oo uu ku sheegaya, gadaal eeg, waa ka alle uu dhahay subxaanahu wa tacaala ulaa'ika aladiina sadaquu wa ulaa'ika hum lmuttaquun. allah, kuwa waa kuwa runta sheegay, waa kuwa aqwaashooda run ka sheegay, afcaashooda run ka sheegay, qalbigooda iyo iimaankooda run ka sheegay, ballanqaadkoodii run ka sheegay oo oofiyey. kuwa waa kuwa ilaahay ka baqaya. allahu akbar. kuwan waa kuwa ilaahay jecel yahay. maxaa yeelay adduunka eeg, waxay ka soo qaateen wixii ugu wanaagsanaa ee anfici lahaa aakhiro. ilaahayna uu leeyahay watazawaduu faina khayra zaad attaqwa. war soo sahay qaata. adduunkan 60 sano, 70 sano, 80 sano aad nooshahay, soo sahay qaata, baadbaadha waxa idin anfacaya, idinka anfacaya xagga. tan ma aha inaad ururisaan, tan ma aha inaad laabti golanka gashataan, tan ma aha inaad maaragtay kulaashaan, rakantaan, maantoo dhan aad dul fadhidaan. tan ma aha inaad dhistaan, inaad dhistaan xaabadeeda ma aha. tan sifo xunay ilaahay uu u yeelay, xalaasheeduna waa xisaab, xaaraanteeduna waa cadaab. tan ma aha baadbaadha 60 sana, bal soo urursada wixii xagga. waa xaggee? waa aakhiro iyo jannadii, wixii xagga idinku anfici lahaa. faina khayra zaad la qaato, sahay la qaatana waxaa u khayr badan attaqwa, cabsida u khayr badan. soo kuwan mu'miniinta ah ee ballamaha markay qaadaan oofinaya, ilaahay wuxuu leeyahay waa sidiiqiin. kuwan afcaashoodii aqwaashooda run ay ku sheegeen, iimaankoodii cibaadadooda run bay ku sheegeen, waana kuwa muttaqiinta ah, waana kuwa maaragtayay adduunka wixii ugu fiicnaa oo cabsida ahaa soo qaatay. ilaahay baa ku dhahay subxaanah. allahu akbar. shahaado meesha ugu dambaysaad wadataa. marka shahaado qiimi badan baad wadataa. waxa madrasatu muxamed sala allahu calayhi wasalam idaylkeen ay inala doonayso, ay u qaylinayso, waa maxay? in aynu qaadano shahaadada alwafaau bilcahd. haddaadan sifooyinkan runta iyo cabsida iyo iimaanka haddaadan wadanin, oo aadan ku sifaysneen, oo aadan maaragtay isku tahirinin, oo aadan isku dedin, haddaadan isku dedin, maya shahaadadan ma qaadan kartid, naaqis baa tahay. man awfaa bicahdihi wattaqaa, qofka oofiya ballantiisa oo cabsada alle ka baqa cadaabka, ka baqa haddii ballantan uu oofin waayo waxa ku dhacaya, ka baqa hadduu hadalka ilaahay diida waxa ku dhacaya. baqa, afkiisa u baqa, indhihiisa u baqa, dhegihiisa u baqa, qalbigiisa u baqa, gacmihiisa u baqa, lugihiisa u baqa, af iyo adinba u baqa.
يا فإن الله يحب المتقين إلهي وحؤاد إياد أجعل يهي كوا بقي أجعل يهي ايق مركو إلهي كليه هي وأوفوا بعهد الله ومركو سينا وربلمها أوفيا بلمها قال لك قاديسان أوفيا من أوفى بعهده واتقى قفك بلمها أوفيا عبسد أوليه والموفون بعهدهم كوا بلنت هذا أوفينيا مركو قال ليه هي يا وحن وكسو العلن قال سبحانه عشان وكجعل يهي الله أكبر يا inaad runlow tahay oo aad ballanta oofinaysid oo aad maaragtay imtixaanka ku guuleysanaysid oo aad taqi tahay alle aad ka baqaysid waxa intaas oo dhan ka sii dheer in uu ilaahay ku jecel yahay ilaahay baan kugu dhaariyay shahaadooyinkan kale waraaqahan kale ee faraha badan ee aan cimrigeeni ku oofinay cimrigeeni ku dhameynay xoolaheeni xoogeeni aqligeeni aanu siinay aynan waxba ku bedelaynin waxana aynan ku islaaxinaynin aakhiran ugu shaqaysanaynin bal ujeedadeenu ay tahay inaan xaaba adduunyo ku ururino ilaahay baan ku dhaariyay ma isku midba ya bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin kuwa oofiya ballanta ya ballanta kuwa oofiya oo baqa ilaahay ka baqa cabsidiisa darteedna u oofiyay ballanta waxa waaye kuwa ilaahay waa jecel yahay jacaylka ilaahay ciyaar baad mooday soo ma ogid adoonkii Allah adoontii Allah waxaynu la'nahay waa jacaylka ilaahay jacaylka ilaahay waa rasiid aad intifaacaysid waa rasiid aad quudanaysid waa rasiid aad biilanaysid waa rasiid ku xifdinaya adduunkan آخرنا كدورة يو كحفظنا جنة كجينيا والرصيد سو ما أوجد قفكو إلهي جعلاضو وحو النقضة محي قعمه وحكو قبن لها إنه وحكو أركي لها دقيه وحكو مقلي لها يا وحو النقضة لغيه وكسو عن لها مركا كدب وحو الباء ويديسته وسينايا وحو الباء كما قالنا وكما قلنايا جعلك إلهي معيار بدمود عاوة خلقا وناكسا نحلكا حبيبك اي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم اي انو حسوسين ايسو ايدي الكين اوركا اينو قلنو اينو باللونو وحي بلمي اينو سو قادني اينو اوفنو كو الهي اينو كقادني يو كو اينو بني ادم كقادنو بل انك كليا ما هي اينو قد بنو اينو كتر ترسينو انسانك ان او كبورنو ان اي قد بيان محاوعي خير لغا قدي كرماه يا روحوا إلهي كوكو جعلانا جعل كي سنة الدون آخرك وأنفع يا الله سبحانه وتعالى هدنا مركل ايك الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات تضبط السماء ككر أيا وحوكو قرايا إناد أمين تهي إناد أمين تهي أو أد إلى لسد أمانة أمانة جركاجا أمانة الدين هذا أمانة عردجاجا أمانة ضدكات كقادة أمانة اللي كوجو أمانة است أمانة دن وحول بو أكت هذا أمانة كوه إن أد إلى لسد الله قرية درجة كوين مية جرت إلى بندكو داشي يا وأدنى بالله ما هن إلى ليا وكأودها يو والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون way ilaaliyaan way raacaan way dhowraan indhahay ku hayaan amaanada غافلين ma aha kama seexdaan amaanada iballamaha ay qaadaan way ilaaliyaan sida arileyga uu u ilaaliyo arigiisa geeleyda ay geel u ilaaliyaan loolayda ay maaragtay looda u ilaaliyaan oo ay indhaha ugu hayaan oo ay cadowgi iyo dugaag iyo halaq ay uga ilaaliyaan ya ayaa waxa waaye ay u ilaaliyaan amaanada iyo ballamaha ay qaadaan yaa qiraya yaa ku qiraya yaa sifada iyo khuluqa wanaagsan Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar marka shahaadadan shahadatul wafa alwafaa bil ahd ya qaatay illa waxaynu soo niri xalaqada bilowgeeda rusushi ilaahi ayaa la siiyay بل أولو العزم أيال السيي شنتي أولو العزم أها الله أكبر وكالي أبو الأنبياء نبي الله إبراهيم عليه السلام إلهي بأقر شهادة تقدير إنه وفي هي
oofiyey wax walba oo ilaahay uu amray wuu oofiyey. waa ka uu dhahayo waibraahiima aladii waffaa, ya ibraahiimkii u sheeg ummadaada, xusuusi ummadaada, ha ku daydaana ummadaada. nabiyullaahi ibraahiimkii ahaa wafiga, oofiyey ballamihii uu qaaday oo dhan wuu oofiyey, bal wuu ka badiyey. wixii aqwaal ahaa iyo wixii afcaal ahaa, wixii oo dhan, kuwo insaan hadduu yahay, kuwo alle hadduu yahay, ibraahim ilaahay wuxuu u qiraya calayhi salaam inuu oofiyey. waibraahiima aladii waffaa. allahu akbar. nabigan marka nabiyullahi ibraahim, ya rasuulkeena la amraya oo la leeyahay waa inaad raacdaa khuluqa, waa inaad ku raacdaa aabbaha ibraahim, ya dabeecaddan iyo dhaxalkan wanaagsan, akhlaaqdan wanaagsan ku raac ee wafinimada ah. eeg, uma awxaynaa ilayk an ittabic millata ibraahiima xaniifa. ya waxaanu kuu waxyoonay ayaa la leeyahay xabiibkeena, ku salli xabiibkaaga sala allahu calayhi wasalam. waxaanu kuu waxyoonay, ya raac diintiisa, maxaa yeelay diintiisaa faraysa alwafaau bilcahd. isagaana ku sifoobay runtii oo uu ilaahay uga markhaati kacaya. ku raac baa layidhi, u kaalay wiilkiisii ismaaciil calayhi salaam. waa kala dhahayo wadkur fi lkitaabi ismaaciila inahu kana saadiqa alwacd. xus nabiyullaahi ismaaciil, ku xus kitaabkaaga, u sheeg ummadaada, xusuusi ummadaada. inahu kana saadiqa alwacdi. wuxuu ahaa mid ballamaha ka dhabeeya, ballamaha ka run sheega. wuxuu ballan qaado ka run sheega oo fuliya oo ka dhabeeya ayuu ahaa. mid ballamihiisa ku run sheega, haddii af uu ka qaado iyo haddii ficil uu qaaday intuba ka dhabeeya oo ku run sheega ayuu ahaa. saadiq alwacd. waxaa ilaahay qirayaa in uu qaatay nabiyullaahi ismaaciil sida aabihii ibraahim calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam shahaadada, shahaadatu taqdiir, shahaadada la yidhaahda alwafaau bilcahd. waxaan walaalayaal kusoo gabagabaynayaa qisadan uu xabiibkeenu sala allahu calayhi wasalam uu ku guddoonsiinayo xudayfata bn alyamaan radia allahu canhu wa ardaah shahaadadan qiimiga badan, alwafaau bilcahd. xudayfa sidaynu ogsoonnahay wuu ka dambeeyey saxaabada, hijrada wuu ka dambeeyey sanad io bar, 2 sano taqriiban. waa waagii uu socday ololihii dagaalkii beder, waa sanadii 2. makuu ka soo qaxayaa, madiinu usoo socdaa, meel dhexaa lagu qabanayaa isagii intii la socotay. waxaa la leeyahay ma waxaad u socotaa madiinaad u socotaa sawma ah? wallahi inaynan ku daynaynin ilaa ballan aad naga qaadid inaadan la soo safanaynin, inaadan garabkiisa noqonaynin, aadan ciidan u noqonaynin, dagaalkana aadan la soo gelaynin. ballan naga qaad, markaasaan ku daynaynay, haddii kale makaan kugu celinaynaa. xudayfa muxuu sameeyaa radia allahu canhu wa ardaah? ballan baa wuxuu ku qaaday in uusan rasuulka sala allahu calayhi wasalam aanu la soo safanaynin, dagaalkaa bederna aanu gelaynin. waa ka uu dhahayo waxaa uun iga reebay, ya in aan ka qayb galo beder, ballantii aan ka qaaday gaalada qureysheed. waa ka uu u imanayo rasuulka sal allahu alay wasalam, markaasuu leeyahay rasuul allow, ballan baan waxaan ka soo qaaday gaaladii. qisadii buu uga sheekeynaya. muxuu dhahayaa xabiibka sala allahu calayhi wasalam, insarifa nafii bicahdihim wanastaciinu allaha calayhim. iska baxuu leeyahay marka, iska baxa, waanu u oofinaynaa ballanta. eeg, oofiya ma uusan dhihin sala allahu calayhi wasalam, wuxuu yiri waanu u oofinaynaa. maxaa yeelay ninka mu'minka ah ballanta uu qaado, mu'miniinta oo dhan baa qaaday. maxaa wacay? waa bunyaan, waa hal dhismo ah oo is adkaynaya weeyaan mu'miniinta. waa ul iyo diirkeed, waa far keliya, waa qalbi qof keliya mu'miniinta. soo ma arkaysid? waxaasoo dhan waa dhaxalkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo aynu ilownay. wuxuu yidhi waanu u oofinaynaa, iska baxa, waanu u oofinaynaa.
ilaahay baanna kaalmaysanaynaa aan uga kaalmaysanaynaa kuwan ya dagaalkii beder waa la ogaa hadde waa kii 70 laga dilay 70 la qafaashay ya guushii faraha badneed ya iyo ghaniimadiina waa tii la helay wuxuu woofinayo waa maxay waa ballan uu ka qaaday gaalo uu ka qaaday halkaas wuxuu ku qaadanayaa Xudayfa ya wuxuu ku qaadanayaa shahaadadii alwafaa'u bil ahd hatta gaal hadaad ballan ka qaadid diinteen waxay ku faraysaa inaad u oofisid maadaama aad qaaday walmuufuuna bicahdihim idaa caahaduu sifadeena noocaa ah in aanu oofino ballanta haddaynu qaadno haddaynu ballan qaadno inaynu oofino haddaba caawa maxaynu ka baranaynaa darsigan dhaxalkan caawa ay madrasadu la qaylinaysay waa maxay waa alwafaa'u bilcahd in la oofiyo ballamaha aynu qaadayno aynu alle ka qaadnay ummadda waa inaynu oofinaa si aynu u qaadano shahaadadan qiimiga badan wallahi ka qiimiga badan inta adduunka saaran oo dhan waa 7 dhul iyo 7 same ogo adduunkana ya ka qiimi badan wallahi aad bay uga qiimi badan tahay maxaa yeelay shahaadadan alwafaa'u bil ahdi ma aha shahaado uu insaan bixinayo waa shahaade alle uu ka soo bixinayo subhanahu min fawqi 7 samaawaat 7 sama ka kor uu ka soo bixinayo weeyaan madrasatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxay inugu guubaabinaysaa idaylkeen in aynu dhaqan gelino dhaxalkan rasuulka sallallahu alayhi wa sallam dhaxalkan la ilaaway dhaxalkan runtii la halmaansan yahay ya in aynu dhaqan gelino kadibna aynu sii gudbino aynu u gudbino walaalaheen la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi iimaankiisu midkiina taam noqon maayo ilaa uu walaalkii kala jeclaado waxa nafsadiisa uu la jecel yahay ya sifooyinkan quruxda badan shahaadadan baasitaankan guushan waa doonaysaane la jeclaado walaalihiin yeysan idinku ekaanin idinka dhaxalkane waa in aad gudbisaan waad arkayseen caawa siday madrasadu u qaylinaysay inta ayaan kusoo gabagabeynayaa astawdicukum allah alladhi la tadiicu wadaa'icuhu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh